jirayd oo yoon isku kooyan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo mayba daba dareerayba shalay oo yo is casileen guddiga doorashada oo ka horeey gudoomiyaha guddiga doorashada ee koonfur galbeed odayaalka dhaqanka shirkaas jirayd iyo qobadeen ya ku tilmaameen dawladda federaaliga oo yoo ka ceedeeyeen intii xildhibaanadii koonfur galbeed oo yoon rarati magaalada muqdisho saas dartiya intii doorasho qob samaana an oo kumid odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya magaalada la raw Malaag Ali Malaag Xasan Ali Qatar ya wayba sin akhriyay warqadka qoran shir jaraa'id odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ha ku bati iyo sin akhriye sidan iyo ku bilowdaas bismillaahir rahmaanir rahiim golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ku socota gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo ku socota golaha aqalka sare federaalka Soomaaliya Muqdisho ku socota golaha shacabka federaalka Soomaaliya Muqdisho ku socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya Muqdisho og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Muqdisho og ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Muqdisho og xubnaha beesha caalamka rugtooda ujeedo go'aan golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya waxa dawlad goboleedka koonfur galbeed u qorsheysneed in ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya 17 bisha 11 2018 doorashadani waa tii ugu horeysay ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ka qabsoonta oo ay dooranayaan madaxweynaha mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed taasoo ka duwan tii ka horeysay oo ay doorteen madaxweynaha odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ay soo xuleen inta kadib waxa dhacday doorashadani la filayay in ay qabsoonto 17 November 2018 ay fara gelin qaawan ku soo qaaday dawladda federaalka Soomaaliya faragelintaas oo ah musharaxiinta qaar ka mid ah in ay la safatay oo ay soo siisay lacag fara badan iyo baabuur aan xabadu karin mounted iyadoo si cad u diiday musharaxiin ka mid ah musharaxiinta in ay isa soo sharaxaan waxa kaloo intaa dheer xildhibaanadii koonfur galbeed oo la filayay in ay u cadaalad falaan musharaxiinta oo ay u daabushay magaalada Muqdisho sidoo kale waxay lacagow laaluush ah ay siisay xildhibaanadii halkan laga qaaday iyadoo xildhibaanadaas aan kor ku xusnay amar ku siisay in ay doortaan musharax ay iyagu wataan sida daraadeed odayaasha dhaqanka oo ah marjaca koonfur galbeed Soomaaliya iyagoo cuskanaya qodobka 6aad farqadiisa C D G ee dastuurka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay go'aan ku gaareen in dib loo dhigo doorashadii loo ballansanaa ee 17 November 2018 sababaha kor ku xusan awgeed inta laga helayo jawi degan si sinaan fursadna uga heli karaan musharaxiinta iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka koonfur galbeed Soomaaliya hadiise aan sida la yeelin wixii dhibaato ee ku yimaada koonfur galbeed waxa dusha u ridan doona madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya saxiixiyaasha malaaqyada ama ugaasada kow malaaq Maxamed Yaaqub Sheekh Darow labo malaaq Ali malaaq Xasan Ali Qatar saddex malaaq Muxdiin Xaaji Aadan afar malaaq Maxamed Aamin Ibrahim shan malaaq Maxamed Xasan Barrow
lix malaaq xasan shure maxamuud toddoba malaaq sheekh aamin sheekh cabdibari sideed malaaq guudow baaqay sagaal malaaq cabdiyey cali ibraahim toban malaaq warsame xuseen ibraahim 11 malaaq xasan gaabe xuseen gaale 12 malaaq ibraahim sheekh salaad 13 malaaq suldaan xaydar suldaan suufi suldaan muuye dheere 14 suldaan cusmaan suldaan axmed sheekh 15 malaaq yuusuf cabdi aadan 16 malaaq nuur shaako jibriil 17 malaaq cusmaan cabdi enow 18 malaaq cali boor cabdi nuur 19 malaaq aadan tiirow cabdi 20 malaaq axmed aadan laamow 21 malaaq maxamed cabdi 22 malaaq cali cabdiraxmaan shiino 23 malaaq ugaas maxamed ugaas 24 malaaq cali macalin cabdi 25 malaaq xasan cumar xasan 26 malaaq suldaan maxamed cusmaan orow 27 malaaq ugaas abuukar islow 28 suldaan ibraahim cali xaaji 29 ugaas sheekh aadan diiriya inta malaaq maxamed yacquub sheekh derow kusimaha guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka ahna afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya wabilaahi towfiiq kala afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed malaaq derow yacquub iyo baaq andiri beele caalamka in laku dhaafa faragelinta dowladda soomaaliya ee kuwadda doorashada koonfur galbeed bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo taariikhda ata litii bili 11aad 2018 odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya may hasaareena bayaan oo ku saabsan xaaladda jirta koonfur galbeed sida isimil hortinlinka akhri si isan ku warqabtaan baryahan may socday fargelin qaawan fargelin dhaaftay maanta shangelin oo qaawan socota sidaasi daraaddeed mayna ku socota dowladda federaalka Soomaaliya may iska deeshay inay shacabkan koonfur galbeed iyo iska durto may iska deeshay inay horumarkii socday ee roojido may iska deeshay inay ummadii koonfur galbeed wada deganaaytay walaalkahay dhawaato badan jeysada sidii haddaba qoraalkan ku argaaseen xildhibaanadii sharafta lahaay una shalay hadoorani yaanti la aruuriye magaalada muqdisho isla waqtigan hadda la roog xayiran unuuna inay meelo doorasho ku sugaanay barnaamij guddiga doorashada liinsuubiye inay gudadan la fadaaya meelo la kahay markii una aragni dhibaatada haniifoodla oo ayaha ka talinta koonfur galbeed weyqaas markii una aragni dhibaatooyinka badan oo musharaxiintan meelo haaska sharaxayaan ku qabsadaas una aragni markii una odayaalkii dhaqanka markii una marjaci koonfur galbeed sida la sheegay oo bayaankan ku argaasaan may go'aaminayaan inay doorashadii dib leen dhiko saliin halo hasalooni waarta oo ummadan iska badbaadada saliin halo hasalooni liiska doorada intaas un oo fiiriyaan oo sharciyadii koonfur galbeedna niinbadnaanayaas qodobka 6aad farqadihiisa hadda meelo la ka xusaay kuma dayin yaa may go'aansanay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed in doorashadii dib leen dhiko maslaxatal umma ku fiirini haddii la allah arintaasi la ka socdo waayo oo dhibaato ku kooyto oo dawladda federaalka isku dhaga tirto ciidanka ka daabalo amba xildhibaano kale haddana meel kale iniiska ka weerto oo walaalinin dhamayna amba hayna sharcan hayna yaa ka saarto dawladda federaalka unku digaan arintaas
beesha caalamka mayba ku codsadaane haddii unaana dhaqanka koonfur galbeed in arintaasow oo saansaanteeda ning muuqati nabadgelyo xuminta dheliyaasa oo ning muuqati dimuqraadi la-aanta dheliyaasa oo ning muuqati inuu ummadan koonfur galbeed lakaweega la fadaw ini may ku codsadaane iniyo ka horseedaan oo arintaas marna liin aqbalna liibaan xuseen KGS TV baydhabo Janaayo